السلام عليكم غير شرفت لكم سو هذا كل تي في maanta halka waxaan ku soo gudbinaynaa barnaamij aad u xiiso badan yaa ku yiri waxbarashadu waa laga gaboobaa yaa ku yiri 80 jirku wax ma barto hadaba sidaad u aragtaan 80 sano jir oo fariisto fasalka 8aad ee waxbarashada Aba Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Gaalkacyo oo ah 80 jir ayaa maanta ka mid noqday ardayda u fariistay imtixaanka fasalka 8aad isaga oo ku sugan magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo waa magaalooyinka ay ka soo baxaan waxyaabaha cajiibka ah Aba Cabdiraxmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan inuu heerkan soo gaaray isla markaana uu u fariistay imtixaanka ay qaadayso dawladda sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhammaan dadka Soomaaliyeed in waxbarashada lagu dadaalo oo aan lagu xiri karin ayna tahay muhiim in la barto markasta waxbarashada wasiir dowladda waxbarashada maamulka Galmudug Mursal Cabdi Aadan oo imtixaanka daafuray ayaa magaalada Gaalkacyo sidoo kale guud ahaan ardayda iyo Aba Cabdiraxmaan u rajeeyay guul isagoo ugu baaqay inay dadaalkooda sii wadaan siina laba jibaaraan magaalooyinka laga daafuray imtixaanka ayaa wax kamid ah Muqdisho Kismaayo Baydhabo Dhuusamareeb iyo Jowhar halka ay ka maqan tahay magaalada Garowe oo kali ah laga yaabo inay arintan qusayso khilaaf ku dhaxeeya Puntland iyo dawladda Soomaaliya sidoo kale waa markii ugu horeysay ay dawladda federaalka Soomaaliya qaadaysa imtixaanka shahaadiga ah dugsiyada dhexe iyo kuwa sare oo ay sanadkan u fariisteen arday fara badan waana heerkii ugu sareeyay ay dawladda ka gaarto imtixaan qaadista iyadoo intaan oo magaalo isku keentay iyo intaas oo maamul sidoo kale waa talaabo ku dayasho mudan tilaabada uu qaaday Aba Cabdiraxmaan oo dhiirigelinaysa dadka waaweyn inay waxbarashada ku sii dadaalaan غير شرفت البرنامج انت سو كوغي هدي برنامجكاسين annagana nagu dhiirigeliya subscribe ta iyo like ta iyo inaad video ga sii share gareysaan sababta anaga la tirkeena in la dhiirigeliyo oo baana si channel ku koro adinkana aad la socotaan muuqaalada baa soo gali doono waad mahadsantihiin oo billaah tawfiiq maalin wanaagsan